السلام عليكم حقيقوين لياب له ku saabsan wadanka Israa'iil ereyga Israa'iil marka laga eego kitaabka Tooreed wuxuu ka kooban yahay laba kelmadood oo waaweyn oo qadiimi ah kuwaas oo kala Israa oo loola jeedo adoon iyo iil oo loola jeedo ilaah taasoo macnaheedu yahay Cabdullah dhinaca kale marka laga eego kitaabka Masiixiyiinta Israa'iil waxa loola jeedaa loolan xagga Ilaahay ama shiraacun maca Allah wuxuuna ereyga Israa'iil ka yimi asalkiisa Nabi Yacquub oo lagu magacaabi jiray Israa'iil waana halka ay ka soo farcameen Israa'iiliyiinta sida daraadad inaga ka muslim ahaan waxa inoo wanaagsan inaan dhahno dawladdiisa hanuuniyada ee ma ahan dawladda Israa'iil tirada dadka ku nool Israa'iil waa 8.5 milyan 75% waa Yuhuud 20% waa Carab 5% waa muhaajiriin luqadda saxda ee wadanka Israa'iil waa Hebrew waxaana lagu tiriyaa dawladda Israa'iil wadanka ugu cunista badan khudaarta iyo fawaakihda maxaa yeelay waxa ka mamnuuc ah inay cunaan hilibka tan iyo markii uu noqday Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil sanadii 2009 ilaa iyo hadda Israa'iil waxay xoog ku qabsadeen 4500 guri oo ay Falastiiniyiintu lahaayeen iyagoo tixraacaya heshiiskii Geneva ee dhigay inay ka raaraan Falastiiniyiinta dhulkooda oo ay xoog kula wareegaan sanadii 1948 Israa'iil waxay leedahay hal magaalo oo weyn oo la dhaho Tel Aviv waxaana ku noolaa 100,000 oo qof 7 sano kadib 2018 Israa'iil waxay leedahay 14 magaalo oo weyn oo midiiba ay ku nool yihiin 200,000 iyo wax ka badan oo dad ah Mossad waa magac ay leeyihiin hay'adda sirdoonka Israa'iil waxayna ka timi Mossad Mossad waa magac ay leeyihiin hay'adda sirdoonka Israa'iil waxayna ka timi Mossad Caaliyabeyt Cibri Mossad waa magac ay leeyihiin hay'adda sirdoonka Israa'iil waxayna ka timi Mossad Caaliyabeyt Cibri waana hay'adda qaabilsan haajirinta sharci darrada waxayna daafaha dunida ka soo rartaa Yuhuudda ku nool si ay u keento Israa'iil sirdoontii ugu khatarsaneyd taariikhda hay'adda Mossad waxay ahayd gabadh Carbeed oo ka soo jeeday Lubnaan waxaana la siiyay shahaado sharaftii ugu sareysay ee muwaadin Israa'iil la siiyo waxaana sawiradeeda lagu dhajiyay xafiisyada hay'adda Mossad Israa'iil waa dawladdii ugu horeysay ee ka mamnuucday dadkeeda miisaanka culus ama buurnida waxayna u yeeshay xaddi aan la dhaafi karin dawladda Israa'iil waxay buurta Saytuun ee ku taal Qudus u soo bedeshay qabri lagu aaso Yuhuudda iyagoo aaminsan in markuu adduunka dhamaado meesha ugu horeysay ee Ilaahay ka soo nooleynay dadka ay tahay halkaasi Israa'iil waa dawlad kaliya ay haysato hubka nuclear balse aan sheegan inay hubkaasi haysato dadka Israa'iiliyiinta ee aan ahayn Yuhuudda waxaa ka mamnuuc inay gataan guryaha iyo dhulalka waxayna leeyihiin taariikh u gaar ah si looga garto inaysan ahayn Yuhuud dadka Israa'iil waa dadka ugu ikhtiraacka badan adduunka marka laga fiiriyo bilowga fikradaha cusub fadlan haddii aad ka heshay mowduucan like saar hana ilaawin inaad subscribe saarto una sii share gareyso asxaabtaada